Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada qaybta labaad ee taxanaha Falastiin. Falastiin iyo Islaamka. Falastiin waa dhulkii barakaysnaa. In ka badan 4 bilyan oo qof oo adduunka ku nool, taasoo ah in ka badan kala badh aadamaha koonka saaran, waxay aaminsan yihiin in Falastiin ama ugu yaraan qayb ka mid ah ay tahay mid barakaysan. Ma jirto meel kale oo dhulka ka mid ah oo goob barakaysan looga dhigo dad sidan u tiro badan. Dhammaan saddexda diimood ee ugu waaweyn Ibraahimiyada, yacni Islaamka, Masiixiyadda iyo Yuhuudda, iyo firqooyinka kaleba, waxay Falastiin u arkaan dhul barakaysan oo ay ku yaallaan qaar ka mid ah goobihii barakaysnaa. Yuhuuddu waxay Falastiin u arkaan dhulkii Nebi Yacquub calayhi salaam oo ahaa awowgii qabaa'ilada reer binu Israa'iil. Waa dhulkii uu Nebi Yacquub carruurtiisa kula noolaa. Falastiin waa dhulkii reer binu Israa'iil ay ula qaxeen Nebi Muuse calayhi salaam iyagoo ka cararayay xukunkii arxanka darnaa ee Fircoon. Reer binu Israa'iil dhulka Falastiin ayay ku hoos noolaayeen xukunnadii suubanaa ee Nebi Daa'uud iyo wiilkiisii Sulaymaan calayhi salaam. Dalkan ayay ka dhisteen boqortooyooyinkoodii Israa'iil iyo Judah, oo markii dambe ay burburiyeen Ashuuriyiintii iyo Baabiliyiintii. Masiixiyiinta. Falastiin waxay u tahay dhulkii uu ku dhashay Ciisihii Nasaareed calayhi salaam. Hareeraheeda ayuu ku wacdiyey oo ku gaadhsiiyey waxyigii xagga Eebbe ka yimid. Gudaha dhulkanna, Masiixiyiintu waxay rumaysan yihiin Nebi Ciise calayhi salaam uu ku dhintay isku tallaabta badbaadada aadamaha, oo uu kadibna soo noolaaday. Goobaha cibaadada ee Masiixiyiintu waxay ka sheekeeyaan sheekadan bilowgii ilaa dhammaadka magacyadooda. Tusaale ahaan, kaniisadda Almahdi ee Baytulaxam, meeshii uu ku dhashay Nebi Ciise calayhi salaam, kaniisadda dhalashada, iyo kaniisadda Qiyaamah, kaniisadda qubuuraha quduuska ah, Qiyaamada, oo ka hadasha sara kicinta Masiixa ee la rumaysan yahay. Waxaan soo aragnay aragtiyada dhulka Falastiin ay ka qabaan diimaha Masiixiyadda iyo Yuhuuddu. Markanna bal aan eegno aragtida dhulka Falastiin ay ka qabto diinteenna barakaysan ee Islaamku. Dadka Muslimiinta ah. Sida Muslimiintu u rumaysan yihiin nebiyada diimaha Yuhuudda iyo Masiixiyadda, dhammaan inta kor ku xusan waxay ka mid yihiin sababaha ay Muslimiintu u haystaan Falastiin inay tahay goob barakaysan. Nebi Yacquub, Nebi Yuusuf, Nebi Daa'uud, Nebi Sulaymaan, Nebi Yuusac iyo Nebi Ciise calayhi salaam dhammaantood waa nebiyo horseed ka ahaa halganka xumo reebidda. Islaamkuna waa qayb dhammaystiran oo ah wixii ay ku wacdiyeen nebiyada hore. Muslimiintu Falastiin waxay u arkaan dhulkii nebiyada oo ay ku jiraan 14 nebi ee lagu sheegay Qur'aanka iyo Sunnada. Falastiin waa halkii ay ku noolaayeen, ku wacdiyeen dadka, kuna dhinteen ama dhex mareen. 6 nebi ee aan kor ku soo xusnay mooyee, 8 kale waa Nebi Ibraahim, Nebi Luud, Nebi Ismaaciil, Nebi Isxaaq, Nebi Shucayb, Nebi Sakariye, Nebi Yaxye iyo Nebi Moxamed. Nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Masjidul Aqsa. Masaajidka Al-Aqsa oo ah qibladii ugu horreysay ee ay Muslimiintu u tukadaan, wuxuu ka dhisan yahay bartamaha dhulka Falastiin, gaar ahaan magaalada Qudus. Masaajidka Al-Aqsa waa macbadka saddexaad ee barakaysan ee Islaamka. Waxaa ka horreeya oo keliya xaramka Maka iyo masaajidka Nebiga ee Madiina. Salaada lagu tukado Masjidul Aqsa waxay la mid tahay 500 oo salaadood, sida Nebi Moxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee laga soo wariyey. Al-Aqsa waa masaajidka labaad ee laga dhisay dhulka wixii ka dambeeyay dhisidii Kacbada ee magaalada Maka. Masaajidka Al-Aqsa waa halkii Nebi Moxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee cirka u koray Micraaj, kadib markii uu halkan ku soo gaadhay safarkiisii habeennimo ee Maka looga soo dheelmiyey Israa. Wakhtigaa wixii ka dambeeyay, Muslimiintu waxay u bixiyeen masjidkan albaabka samada. Safarkan Nebi Moxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee wuxuu nebiyada ku hoggaamiyey salaada habeennimo ee masjidka Al-Aqsa. Tani waxay ahayd sharaf la siiyey dhulkan Falastiin iyo Muslimiinta, taasoo muujinaysa in wixii markaa ka dambeeya hoggaanka iyo kor u qaadista caqiidada ee dunida oo dhan ay noqotay mas'uuliyadooda. Safarkan ayaana Muslimiinta 5 salaadood lagu waajibiyey. Taariikh ahaan, aqoon-yahano badan oo Muslimiin ah oo caan ah ayaa asal ahaan ka soo farcamay dadka ku wacdiyey ama ku noolaa Falastiin muddo
waxaa ka mid ah magacyo saameyn ku yeeshay quluubta muslimiinta sida ay dhigayaan taxane taariikheedyada. Ragga waxaa ka mid ah Rajaac ibnu Xayaat al-Kindi, Ruux ibnu Zimbac, Maalik ibnu Dinaar, Imaam al-Awsaawi, Sufyaan al-Thawri, ibnu Shihaad al-Suhri, Imaam al-Shaafici, Ibraahim ibnu Axdam, al-La'iid ibnu Sacad, Abubakar al-Jarjani, ibnu Qudaamah al-Maqdisi. Shakhsiyaadka kale ee caanka ahaa kana mid ahaa kooxdan waxay ahaayeen Cabdulxamiid ibnu Yaxya, oo sidoo kale loo yaqaanay Cabdulxaamidkii qoraaga ahaa, maxaa yeelay wuxuu aasaasay farshaxanka qorista rasmiga ah iyo dukumentiyada ee farta Carabiga. Farmashiistaha Khaalid ibnu Yaziid al-Umawi iyo hogaamiyihii militariga caanka ahaa ee ku guuleystay qabsashadii Andalus, Muusa ibnu Nusayr. Dhulka Falastiin yaa leh ma dhul muran ka taagan yahayba? Caannimada Falastiin ee xilligan waxay ka soo bilaabatay khilaafkan ka dhex taagnaa Falastiiniyiinta Carabta ah iyo Yuhuudda Sahyuuniyadda muhaajiriinta ah oo muddo ku taamayay inay dhisaan dowlad Yuhuudeed, iyadoo ay markii dambe u suura gashay inay aas-aastaan dowlad u gaar ah Israa'iil. Dowladdaas oo kala wareegtay dadkii asliga ahaa ee Falastiin dhulalkoodii. Sahyuuniyadda haddaan macnayno waa fikrad siyaasadeed oo aaminsan in dhulka Falastiin laga dhiso guri qaran ah oo loogu talagalay Yuhuudda oo qura. Waxay ka shaqaysaa inay ka midho dhaliso hadafkeeda iyada oo loo marayo dhammaan hababka suuragalka ah, iyadoo xitaa rabshado ay ka mid yihiin ajandayaasheeda. Sahyuuniyaddu waxay ku salaysaa ficiladeeda doodaha diimaha qaarkood ee inta badan laga keenay diinta Yuhuudda, iyo doodaha taariikhiga ah ee inta badan ku salaysan axdigii hore Old Testament. Si kastaba ha noqotee, arrintani ma aha mid tilmaamaysa in Yuhuudda oo dhammi ay yihiin Sahyuuniyiin ama in dhammaan Sahyuuniyiintu yihiin Yuhuud. Waxaa jira dad Yuhuud ah oo aan Sahyuuniyiin ahayn, iyo xitaa Yuhuud Sahyuuniyadda neceb. Waxaa jira kuwo badan oo Yuhuud ah laakiin aan Sahyuuniyiin ahayn. Qoladan dambe badankoodu waa Masiixiyiin. Si ay u gaadhaan himilooyinkooda, Sahyuuniyiintu waxay qaadeen 6 dagaal oo ay ku dileen kuna barakiciyeen Falastiiniyiintii gudaha Falastiin ku noolayd iyo xitaa bannaanka Falastiin, kuwaas oo ahaa Falastiiniyiintii u qaxday Lubnaan si ay halkaa uga helaan deganaanshiyo nabdeed. Si kastaba ha noqotee, aragtida Sahyuuniyaddu ma tixgeliso kuwa la laayay iyo kuwa la barakiciyey inay yihiin dhibanayaal. Taa beddelkeeda, waxay ku adkaysataa in ficilkeedu yahay mid sharci ah oo anshax leh, iyagoo difaacaya xuquuqda aan laga murmi karin ee ay Yuhuuddu ku leeyihiin dhulkooda. Haddaba bal aynu eegno waxa ay Sahyuuniyiintu ugu yeedhaan xuquuqda aan laga murmi karin, undisputable right. Xalqadanna maanta intaa ayay nooga eg tahay. Haddii aadan daawan xalqadii tan ka horreysayna, waxaad ka daawan kartaa linkiga hoose. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.